Somaliland arday tiradooda guud ay gaadhayso 73540 arday ayaa maalintii saddexaad u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiga sare iyo sideedaad ee dugsiga dhexe. halkani waa dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali oo ay ku galayaan arday kala duwan oo ka socda dugsiyo ku yaala magaalada Hargeysa. Farxaan Cabdi Muuse oo ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee ku nool magaalada Hargeysa, dadkuna ay u garan og yihiin Farxaan Qaboojiye, Farxaan Yare, Farxaan Qalinle, hadba waa midkaad u taqaanee. waxa uu ka mid yahay ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka afraad ee sanadkani. Farxaan Cabdi Muuse Farxaan Qaboojiye oo la hadlay muuqbaahiyaha bulsho ayaa iga waramay imtixaanaadka shahaadiga ee uu fadhiistay. aad baad u mahadsantahay maxamed cabdi qalinle. waxaan imtixaan ku gelayaa dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali, waxaana ka socdaa dugsiga sare ee Maxamed Mooge. waana maalintii saddexaad ee imtixaanka aan gallo. wax walbana waxay u socdaan si habsami iyo qurux badan, marka insha Allah bismillaah kariim khayr badan baan rajeynaa. horta inkastoo dee imtixaan ay tahay oo aan la isku fiirsanayn oo qof walba tiisa loo ordayo, haddana wallaahi dee xushmad iyo ixtiraam iyo qadarin intaba waad ka helaysaa macallimiinta iyo dadka muxuu ahaayey ku sugan goobtaasi. imtixaankuna wuxuu u soconayaa sidii ugu quruxda badnayd ee dee arday loo ilaalinaya dee maasha Allah. wasaaraddeena waxbarashada aad baan muxuu ahaayey ugu mahad celinaya sida quruxda badan ee sharafta leh ay u garab taageen ardaydooda. wax allaaliya wax la istaba marin kara horta ma jiraan. wasaaraddeenu dadaal badan iyo tacab badan ay samaysay darteed wax walba waxa u socon sidii loogu talagalay. waxaan doonayaa inaan dadka aan xasuusiyo adigoo heesiyo dress xirad haye mid ka mid ah heesihii wadaniga maxaad ka xasuusanaysaa? niyow maxamed aad baad mahadsan tahay. inkastoo imtixaan lagu jiro baqbaqayno, haddana wadanku waa nagu wada dhex nooli. calankan ku dhaatow dhigii ragaygiyo kaandhuu xasiistow dhagartii halyeygo kaan nacaab u soo dhacay ka dhacsaday cadaawa dhaxalkiyo magtaydo kaan may dharaarti dhulka xidhiidhka hoosiyo burca kaga dhawaaqe Somaliland ka dhabo hayga dhicin hadheelin. ma dhuumashaad ku martaa ma isqarisaa? horta lama dhuuman karayo waan la isqarin karayn, laakiin dadka markaan dhex marayo ama aan ku dhex jiro dadka si xushmad iyo qadarin leh ayuunbaa layla dhaqmaa. dhammaan ummadda Soomaali weyn meel kastoo ay ku nooshahayna aad baan u salaamayaa. waxaan leenahay noo soo duceeya, dee waa iska jihaad marka insha Allah ilaahay khayr ha noogu dhameeyo. tacab iyo wixii aan dadaal haynaba dee waan waxamanaan hagran baan leenahay. Farxaan Cabdi Muuse Farxaan Qaboojiye farxaddiisa ugu weyni ayaa dadaalka badan ee uu geliyay inuu marun arko isagoo fadhiya jaamacad. horta waxa ugu badan xiisaha igu hayaaba inaan jaamacad dhex fadhiistaa ayaan doonayaa. waxaan ugu weyn doonayaa waxaan jeclay anigu aan doonayaa inaan barto inaan bartaan doonayaa. anigu markaan saa jaamacadda u galo insha Allah bismillaah kariim waxaan doonayaa inaan engineer noqdo insha Allah bismillaah kariim. ilaahay igu guuleeyo. guriga u horeeya yaa jeceshay inaad u dhisto? maxay cabdi qalinle adoo baan ku dhisay soo diyaar garow. mar kale Farxaan Qaboojiye waxa uu da'yarta u soo jeedinayaa in qof kasta aanu ka cabsan hiigsiga caqabad kasta oo ka hor timaada. ugu dambeynta fariintan diraya waxa weeyaan dadku waxay horta fariin qaldan baa dadka ay wadaamaysiin. qof kasta adduunka waxaan la isku wadi karin ma jiro. adduunka adoo tan wata tan wadan kartaa. adduunkana mahmaha Ingiriis waxay tiraahdaa everything is possible you believe. shay kasta waa suurtagal haddii aad u aaminsantahay. laakiin marka anigu dadku ila yaabay nimanka qaar baa kulama farxad miskuul buu dhigan jiray qaar macay. marka inaad waxaan isku wadi karto oo aad wixii dadka wanaad wax kaga duwanaan kartaa.
waanaad wuxuun qaban kartaa marka anigu waxaan leeyahay dadka wax allaaliya wax cabsida horta la dhaha kaas ka dhiga wixii aad qaban karaysaan ku fiicantiina qabta wixii waxbarasho iyo aday caqabadii ka timaadana inaad ka jeesanin iska wado aad baan salaamay maxamed cabdi qalinle muuqbaahiyaha bulsho Hargeysa.